بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إلهي سبحانه وتعالى ayaama si qaas ah dikrig iyo xuska asaga la xuso aad in loo badiyo uu amray ayaa jira. waxaa jira ayaama aad iyo aad rabbi xuskiisa inay dadka ku celceliyaan iyo awqaadyo la amray. sidaa darteed ayaa bisha aanu ku jirno waa bishii dilxij ee qiimaha iyo wanaaga badnayd. waa bilaha lagu magacaabo ama bisha ka mid ah bilaha ashhurul xurumka lagu magacaabo. bishan isaan horay u soo tilmaanay qiimo weyn bay muslimiinta ugu fadhisaa, waayo waajibaadka xajkaa la gutaa, dabiixada iyo xoolaha udxiyada la gowracaa. rabbi ayaa wax badan la xusaa subxaanahu wa tacaala. intaasoo dhan oo cibaadihii inka badan ayaa bishaani ku dhex jirta, lagana dhex helaa. waxaan soo tilmaanay rabbi subxaanahu wa tacaala 10kan maalmood inuu dhex yeelay fadaa'il gooni ah oo aan maalmaha kale lahayn. 10kan maalmood camalada la qabtana inaysan u dhigmin camalada maalmaha kale la qabto. ilaahay wuu ku dhaartoo wuxuu yidhi: waalfajri walayaalin cashr, waxaan ku dhaartay fajarka iyo habeeno 10 ah macal maalmahooda. taa waxaa loola jeedaa inay sharaf gooniya leeyihiin. waxaa loola jeedaa in ilaah subxaanahu wa tacaala agtiisa qiimo iyo wanaag fara badan ay 10kan maalmood ka leeyihiin. 10kan waxaa ka mid ah maalin aad iyo aad u qiimo badan, rabbina subxaanahu wa tacaala uu dhex yeelay fadaa'il cadiida ah oo aad iyo aad u tiro badan, aanana markaa la soo koobi karin. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta waxa uu faray maalintaa inay aad iyo aad uga faa'iidaystaan, maalintaa inay dembi dhaafka ku jira ay kasbadaan, maalintaa khayrkeeda inay dalbaan, maalintaa sharafta iyo cisada ay leedahay inay ogaadaan. fadliga la dhex yeelay maalintaana ummaddu inay aad iyo aad uga faa'iidaystaan. waa maalinta beritoola ah ee ay ku beegan maalinta lagu magacaabo maalintii carafa. carafa maalinteeda waa maalin qiimo badan. rasuulka sala allahu calayhi wasalamna ummaddu in badan buu ku guubaabiyey inay maalintaa dikriga alla badiyaan, in ducada aad iyo aad loo badiyo, in ummaddu ay soomaan intii carafo aan istaagin waa lagu guubaabiyey. rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar allaala markii la su'aalay oo la weydiiyey sababta ku kaliftay inuu soomana, wuxuu nebigu ku jawaabay in 2 sano ajirkii in 2 sano dembi dhaafkooda laga helo inuu markaa ugu ajir xisaabsanayo sala allahu calayhi wasalam. markii la weydiiyey soonka la soomo maalinta cashuura, waa bisha muxaram ee nagu soo socoto 10keedii, wuxuu ku jawaabay sano tagtaa laysku dhaafaa. maxaad u soontaa maalinta carafana? fadliga ku jira maxay tahay? 2 sano dembigeeda qofka loo cafiyaa, sano tagtay intu soo socota ayuu nebigu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam. maxaad u soontaa maalinta isniinta ah? waa maalintaan dhashay buu yidhi. isniin iyo khamiis maxaad u soontaa? camaladaa ilaahay loo bandhigaa. addoon walba oon mushrik ahayn ayaa dembiga loo saamaxaa, ilaa 2 qofood oo shaxna iyo khilaaf ka dhaxeeyo, colaad iyo colna isku qaba maahane. labadaa waxaa la yidhaahdaa u kaadiya oo u korta, dembigana ha ka tirtirina ilaa ay ka heshiinayaan. sidaa darteed ayuu nebigu saa u kala qaybiyey soomanka cashuura, carafa, isniin iyo khamiis iyo waxyaabaha markaa lamidka ah ee maalmaha ku dhex jira. yaan la moogaanin beritoole haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala in fadli fara badan ay leedahay. maalin qoraxi ay soo baxdo, maalin ka fadli badan maalinta carafa ma jirta walaalayaal.
rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay duco waxaa u khayr badan ducada maalinta carafa la ducaysto. maalin qoraxi ay soo baxdana waxaa u fadli badan maalinta carafo. ma jirta maalin ilaahay uu kaga xorayn badan yahay addooma naarta oon maalinta carafa ahayn sala allahu calayh wasalam, sida axaadiista uu ku muujiyey rasuulka. idan degdega oo dadaala, idan maalintaa yaan la moogaanin, idan maalintaa ha la soomo, sadaqa haddii la bixin karaayo ha la bixiyo, khayr iyo wanaag siyaada haddii la samayn karaayo ha la sameeyo. ducada iyo baryahana maalintaa yaan la iloobin. rasuulka sala allahu calayhi wasalam saan tilmaanayba duco maalintaa la ducaysta maalintaasaa u khayr badan. wuxuu qof yidhaahdana waxaa u khayr badan ani iyo nebiyaashii hore wixii aanu dhahnay, taasoo ahayd laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. saa darteed berito dadka muslimiinta ah intaan carafo istaageen waa inay soomaan. soonkaasi 2 sano ajirkoodaa loo xisaabsadaa. tu way tagtaybee waxaa ka cajaa'ib badanta soo socota oo markaana loogugu dhaafi doono. allahu akbar. waa nimco ilaahay oo nagu socota, waa naxariis ilaahay oo aanu helayno. dembi aanu samayn doono iyo dembi aanan weli gelin oo aan geli doonno, ilaa insaanku dembi kama maqnee kaasaana loogugu dhaafayaa. waa nimco ilaahay, waa fadli alle, yu'tiihi man yashaa'u, qofkuu doonuu siiya. xujaydu waxay istaagayaan bannaanka carafo maalinta carafo, ayagu soonku way ku dhibtoonayaan. saa darteed looguma talagelin in la soomo. rasuulku wuxuu diiday maalinta carafa soonkeeda qofkii carafo taagan. sababtu waxay tahay wuu dhibtoonaya, howl aad iyo aad u weyn ayuu ku jira, rabbi bari ayuu ku jira, tuugmo alle ayuu ku jira. xaaladahaasoo dhan ayaa qofka xaajiga ah waxaa loogu diiday inuu soomo, waayo camal qiimo badan ayuu markaa ku dhex jira. xujayda maalinta carafo ilaahi subxaana wa tacaala waa ku ibtaahimayo, waa ku faantama. addoommadii mala'da agtiisa ayuu ugu faantama, waa u soo dhowaadaa subxaanahu wa tacaala. maalinta oo sagaalaadka ah oo maalinta carafo ah, xujayda bannaanka carafo taagan dharkoodu waa isku mid, 2 calal ama 2 go' bay wataan. taajirkoodii faqiirkooda waa isku mid, hantiilahoodii faqiirkooda waa isku mid, xaakimkii maxkuumkooda waa isku mid, agoonkoodii ka kale waa isku mid. saa darteed baa waxay wada istaagsan yihiin saciid keliya. rabbi intuu u soo dhowaaduu addoommadiisa malaa'igtaa ku leeyahay, fiiriya addoommadayda haaulaa way ishcaadsan yihiin, way basaarsan yihiin, waxay iiga yimideen min kulli fajin camiiq, jiha kasta oo fog. fiiriya oo markhaati iiga noqda dhammaan waxay meesha taagan inaan dunuubta u cafiyey, dembigana u dhaafuu ilaahay oran subxaana wa tacaala. qofkii xajiyan rafad iyo fasqi soo samayninna waa ka soo laabtaa sidii asagoo hooyadii ay dhashay oo kale dembi ka ah. axaadiis buu rasuulku ku cabiray sala allahu calayhi wasalam. wax badan walaalayaal beri aad ha loo dadaalo. inta khayr la samayn karaa ha la sameeyo, intii baryo ilaahay la baryi karaa ha la baryo. muraadada aan leenahay ilaahay aan weydiisana waa fursade. ciyaalka naga halaabay ilaahay aan u barina waa fursade. kuwa noo toosan ilaahay inuu noo sii toosiyo aan ka barina waa fursade. xanuunkaa naga batay na dishoodayna inuu rabbi caafimaad noogu bedelo aan ka barina waa fursade. waxyaabo fara badan oo fursad ah ayaa jira. ilaahi subxaana wa tacaala wuu ajiibaa ducada. maalinta carafa shaydaanku waa dullooba, maalinta carafa shaydaanku waa xaqirmaa, maalinta carafa shaydaanku waa liidnaadaa, maalinta carafa shaydaanku hoos buu aadaa. saa darteed aan aad iyo aad maalintaa ugu dadaalno. waa fursad rabbigeenna siiyey, cid naga qaadi kartoo noo diidi kartaa yihiin ma jirto. in badan buu ducada naga aqbalaa beri subxaana wa tacaala. wax badan buu noo dembi dhaafayaa berita inshaa allahu tacaala. wax badan buu qooraheena naarta ka xorayn doonaa allah subxaana wa tacaala berita idin alle. bacdamaa saas ay tahay yaanan moogaanin, yaanan ku mashquulin cayaar iyo waxyaabo kale, yaanan ku mashquulin filimo iyo heesiyo waxyaabo kale, yaan ku mashquulin muusig iyo waxyaabo kale, yaanan ku mashquulin facebook iyo waxyaabo kale, yaanan ku mashquulin iimayliyo waxyaabo lamid ah. waayo berita maalin u dhig
tahay ma jirto. berita maalin la mid ahi adduunku soo maalmaha noocan oo kale ahna waa laga haniimaystaa, waa laga faa'iidaystaa, fursadeedaa la ilaaliyaa. wax badan baa ilaahay laga baryaa inuu ku waafajiyo. way tawfiiqda ilaahay baa iska leh. dad fara badan oo nool oo caafimaad qabo oo baryootami kara oo dikrigaa la imaan kara oo soomi karo haddana aan la waafajinin ayaa jirta. wamaa tawfiiqii ilaa billaah, wax waafajiya ma jiro ilaa ilaahay maahane subxaana wa tacaala. xaqa inaad garato rabbi ku waafajiyo waa nimco gooni ah. carafo inay tahay inaad garato oo ilaahay ku waafajiyo waa nimco gooni ah. xoog iyo shabaarad laguma, raganimo iyo karti laguma helo, naaganimo iyo dadnimo laguma helo, nasabnimo iyo qabiil wanaagsanaan laguma helo, hantii xoolo fara badnaan laguma hele. rabdoon kuu jeclaado waafajiya subxaana wa tacaala. rabbiyaan in badan ka rajaynaynaa dad tawfiiqi ee berita wafaqi doona inuu nagu daree. carafayaan la moogaanin. maalintan yaad iyo aad ha loo fiiriyo. rabbi xuskiisa u wanaagsan waxyaabaha maalmaha la sameeyo. maalmaha carafaad, maalinta ciidda, maalmaha ku xiga, rabbi in ilaahay aad loo baryo subxaana wa tacaala. wadkuru allaha fii ayaamin macduudaat, maalmo tirsan rabbi barya oo ilaahay xusa. waa sida ilaahay kitaabku uu ku tilmaamay. wadkuru allaha fii ayaamin macduudaat faman tacajala fii yowmayni falaa ihma calayhi waman ta'ahara falaa ihma calayhi liman ittaqaa. taana waa gebagabadii xajka. ayaam macduudaad maxaa loola jeedaa? mar kalaan hore u soo marno ilaahay yidhi wadkuru allaha fii ayaamin macluumaat, maalmo macluumaad ah ilaahay barya. maalmaha macluumaadka ama rabbi xusa waxaa loola jeedaa waa 10ka bisha aanu ku jirno. waa kow ka soo bilow ilaa 9aadka oo ay dadku soomayaan, rabbina ay baryayaan, ducadana ay ka rajaynayaan inuu rabbi ka ajiibo subxaana wa tacaala. iyo maalinta ciidda waa 10kaa hore. wadkuru allaha fii ayaamin macluumaat waa maalmaha 10ka ka dambaysa ee lagu magacaabo ayaamu tashriiq. waayo ayaamu tashriiq waa ayaamo wax la cuno, waxna la cabo, rabbina la xuso subxaana wa tacaala. rasuulka markii la su'aalay maalinta 10aadka ah waxa ugu fiican oo ay dadku sameeyaan caj iyo thaj buu ku tilmaamay. cajkuna waa qaylo, rabbi dikrigiisa lagu qayliyo, tasbiix kor loogu qaado, dikri ilaahay la sameeyo. thajkana waxaa loola jeedaa dhiig la qubo, waa xoolaha udxiyadoo markaa la gowraco iyo hadyiga, kuwaasoo ilaahay loogu dhowaado dhiig qubkooda. xaaladahaasoo dhan baa dadka muslimiinta la rabaa inay dareemaan, inay fahmaan, inay ogaadaan. carafo xaaladeedu waa sida. ma sahlanay ha sahlaysanina, ma fududay ha fududaysanina, ma liidatay ha liidina, ku hoos ma jirtay hoos ha u dhigina. kor intaad u qaadi kartaan maalintaa qiimeeyo qadariya. ha la soomo gabdhaha dhiiga caadada uu ku dhaco ee ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda soonka uu waafajin waayo. macduurka ay noqdeen dartii yaynan niyad jabin, yaynan isdhihin maxaa dhacay. rabbina ha ka eed sheeganina subxaana wa tacaala. sababta waxay tahay haddii soonku uu ku gabay, waxaa jirta waxyaabo kale aad uga daba tegi karto, aadna ku dhaafi karto dadkii ayugu markaas soonnaa. qaara intay iska niyad jabaan ciyaartooda iska dhex fadhiista, tv-wooda iska shita, geemkooda iska ciyaariya, wixii markaa la mid ah. sababtuna waxay tahay maalintii carafaa soonku naga jabay, maalintii carafaan daahir noqon weyne iyo wixii lamiday ku andacoodaan. saa ha yeelina. laga yaabay kuwii soomay inaad ka ajir badataan, laga yaabay kuwii khayrkii wanaagga samaynaya inaad ka ajir badataan. ilaahay ugu shukriya, ha ka eed sheeganina. qaar baa xanaaqa. yaad u xanaaqay ilaahaya subxaana wa tacaala? waa maya. ilaahay waa xakiim subxaana wa tacaala. arrintan kugu dhacdayna xikmad buu ula jeedaa. wax badan ha walbahaarina, wax badan ilaahay ha ka eed sheeganina. haddaad soomi weysaan ilaahay baa la xusaa, xus allaa la badiyaa, sadaqaa la bixiyaa, khayr baa lagu dadaalaa, deriskaa wax loo taraa, xijaabkaa la adkeeyaa. qof kastoo muslim ahoo dhibaataysan baa wax lala qabtaa. waxa la qabanayaa kafiir ahoo fara badan. way macruufku waxa lagu magacaabo aad bay markaa u fara badan yihiin. wanaagyaal maha fadligii wanaagga ku jira. in badanna qur'aanku wuxuu ku soo celceliyaa xuska allah subxaana wa tacaala. beri waa carafo haddii rabbi idmo. wamaa adraakum maa carafa, maxaa idin ogeysiiye waxay tahay? maxaa idin ogeysiiye qiimaheeda? yuhuuddaa garatay qiimaha noogu jirta maalinta carafo.
intay noo yimaadaan bay leeyihiin yaa amiira almu'miniin ayad baa kitaabkiina ku jirta, wallaahi haddaan yahuud nahay haddii nala ku soo dejin la waan ciidi lahayn, latakhadnaa dalika alyowm ciid, maalintaa ciidaan ka dhigi lahayn. cumar baa ninkii su-aal weydiiyey oo yidhi ayu aayadee waaye? ma yahuudigii wuxuu dhaha alyawma akmaltu lakum diinakum wa atamamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan. waa aayadda doqon yahow anagaa kaa naqaan buu yidhi. carafay soo degtay aayadda alyawma akmaltu lakum diina, carafay soo degtay. banka carafuu taagnaa, jumcay ahayd, nebi moxamed baa lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam, alyawma akmaltu lakum diin wa atamamtu calaykum nicmatii. nimca noo dhiman ma jirtay, beritoo kale na loo dhammaystiray. beri waxyaabaha qadarinta mudan bay ka mid tahay, caraf lagu qiimeeyey ka mid tahay, caraf waxyaabaha lagu maamusay ka mid tahay. alyawma akmaltu lakum diinakum wa atamamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan. yahuuddaa naga majeersanaysa, laakiin toodaan aadnaa maanta nin dhan oo qiimo badan oo ahludiin isku sheegaya yaa laga yaabaa diinteena inuu u arka diin hoosaysa, aan qiimo lahayn, casriga aan la socon karin, lagu dhaqmi karin. ayagana teenay soo majeersanayaan. wallaahi waa ciidi lahayn buu leeyahay, wallaahi damaashaad baan samayn lahayn buu leeyahay, wallaahi feestaan ka dhigan lahayn buu leeyahay. waana majeersanayaa, waana tamaninayaa, diinteennu rabaa. laakiin markaan ka tagnay, aan fahmi weynay, caqligeennii aan gelin weynay, aan waxyaabaha kale u hanqaltaagnay, teeniina ka tagnay, toodiina gaari weynay. xaaladdaa markay dhacdaa allana duleeyey, hoos aan u dhacnay. laakiin ma aha islaamku waxaan nagu dhaqmi karin inuu yahay, laakiin anagaa noqonay ummad sida loogu dhaqmaa iyo waxyaabaha qarbi iyo sharqi ay haystaan kuwa mar walba ka daba socda, nolol fiicanna u maleeya. noloshu waa nolosha diinta islaamka. wa atamamtu calaykum nicmatii, nimcada naga maqan maxay tahay? ilaahay noo dhammaystiray. nicmadii caafimaadkaa haysanaa, tii islaamnimada allana siiyey, tii rumaynta nebiga la rumeeyey allana siiyey, tii islaamnimada hidaayadeeda allana siiyey, tii lagu manaystay dadka adduunka ku nool kuwa ugu khayr badan inaan noqono yaa rabbina siiyey. waxa naga maqan maxay tahay? markaan garan weynay maan diinta wax uga sheegaynaa? markaan anagu fahmi weynay maan leenahay tanaa dibdhac noo keentay? markaan qaadan weynay maan leenahay tanaa dhibaatada noo keentay? mar allaala markii nala ka dhaadhiciyey tanaa ugu xun, uguna liidata, xuquuqna ma taqaano, annaguna aan u alalaasnayo qaarkeedna ay u sabciyeen. markaas kadib maan eedsanaynaa inta islaamku waa maya. subxaanaka yaa ilaahay, subxaanaka yaa rabbi, berita waa carab wan cajiib badan. muslimiintay sooma meeshaa joogtaan, xujayda ilaahay barya subxaana wa tacaala. yaryarka ha la soomiyo intii la soomin karo, waaweynka ha soomaano, dumarku ha soomaano, raggu ha soomaano. ilaahay ha loo soomo subxaana wa tacaala. 2 sano dembi dhaafkeeda ayaa ilaahayna siinaa subxaana wa tacaala. 2 sanoona loo dembi dhaafo xaggee laga heli karaa? yaasana siin lahaa oon rabbi ahayn subxaana wa tacaala. maxaase nooga nimciy wanaag badan carafo aan soonno oo 2 sano ilaahay dembigeeda noogu dhaafo subxaana wa tacaala. qofkii rabbi gaarsiiyow dadaal, qofkii soomiyow soon, qofkaan soomi karno cibaado ku dadaal, qofkii cibaadaysaa khayr iyo wanaag hela. waxa yaraysanin, wax un ha ahaado cibaado ah ee markaa ha la sameeyo. baryahana yaan la joojin. alla wuu caroodaa haddaan la baryin, bani aadamkuna way caroodaan haddii la baryo. ilaahay wuu caroodaa haddaan la baryin, bani aadamku wuu caroodaa haddii la baryo. ilaahay wuu ku farxaa wuunana jeclaadaa haddaan barino, bani aadamku wayna jeclaadaan wayna nagu farxaan haddaan ka aamusno. wax badan aan xaaladaa qiimayno, albaabka ilaahay beryaan la moogaanin, gacmaha kor ha loo taagto. waa xayi, waa sariig badne allah. ilaahay waa kariim oo waa deeqsi badan yahay, waana ka sariigtaa, waana ka xishoodaa. addoon faqiir ah oo baahan oo addoonkiis ah oo gacmaha intuu kor u taagtay inuu eber ku soo celiyo subxaana wa tacaala. rabbi wax un buuna siin doonaa, rabbi waana ajiibi doonaa. ilaahay wuuna jeclaanaa haddaan u tooba keenno, wuuna jeclaanaa haddaan barino, wuuna jeclaanaa haddaan tuugno, wuuna jeclaanaa haddaan amarkiisa qaadano, wuuna jeclaanaa haddaan jeclaano. xaaladahaasoo dhan baanu gaari doonaa. carafo waayo beri, aad ha loo dadaalo, ha la soomo, barya ha la badiyo, rabbi ha la tuugo. khayr iyo wanaag fara badan baa la gaara. qaasan salaada casr laga bilaabo samaynaa ilaahay deeqdiisaa ka badan ayaa loogu jawaabay. bani aadamow, insigiini jinnigiina
awalkiina iyo aakhirkiina, kiina hore iyo kiina dambe bannaan cad haddaad isugu timaadaan, mid kasta afkiisa furto i weydiisto wuxuu rabo ee uu u baahan yahay, aniguna aan siiyo mas'aladiisa, igama nusqaanta buu dhahay ilaahay. cirbadda marka badda la geliyo waxay soo nusqaamisa maahane, cirbad badda geli, biyo ku soo dhaami, waxay nusqaamisaa alla ka nusqaama subxaanahu wa tacaala. waa cibaadadiisa, waa addoommadiisa dhammaantood, kiyada hore, kooda dambe, insigooda, jinnigooda, hal banaan hadday isugu yimaadaan. nin kasta la dhaho hadal, maxaa u baahan tahay, maxaad u rabtaa, ilaahay ka dalbanaysaa. qof kasta afka uu furto, masaladiisa, baahidiisa, dhibkiisa uu bandhigto, rabbina wax u qabto uu ka baahi tiro, wallaahi ilaahay kama nusqaamo. ilaa badda aad u jeedaan, cirbadda marka la geliyo wixii biyaha ka nusqaamisa maahane. allahu akbar. xaaladdan waxaanu tilmaamaynaa ama aan ka fahmaynaa ilaahay diiqdiisa iyo wascinimadiisa. cid baridaa la la'yahay, cid wax weydiisataana laka la'yahay. un baan ka daba cararnaa, waxaan qiimo lahayn baan ka daba cararnaa. beriis dhacayo caano dhacaa nala siiyaa. wax allaala wixii ilaahay agtiisa ahaadaan nacnay. markaan taa ku qanacnay yaa ilaahay xajaab naga dhex samaystay oo wixiisii naga reebtay, oo ilaahay subxaana wa tacaala annagana khayrkii wanaaggii agtiisa aan ka heli lahayn, oo aan ka dalbi lahayn, oon ka raadsan lahayn. wixii oo dhan baa markaa naga go'ay. haddaan baahina hoos dhigan lahayn, haddaan baahideena u bandhigan lahayn, ilaahayow haddaan dhihi lahayn, dhibka maanta aan ku jirno kuma jirnayn. wuxuuna rabbina siin lahaa deeqii waxaan ku kaaftoonno, wuxuuna siin lahaa waxyaabo fara badan. waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. rabbi wuxuu idin leeyahay ibarya aan idinka ajiibe, ituuga ilaahay idhaha aan idinka ajiibe. meelahaad u qaylinaysaana u aragteen in khayri wanaag laga helaayo kuma jiraana xaggayga imaada. udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii, dadka iska weynaysiinaya oo aan rabin baryahayga, sayadkhuluuna jahannama, way geli doonaan naarta jahannamo, ayagoo daakhiliin ah, daliiliin ah, liita, hoos marsan. saasuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. maxaa ka karaano badan allah, maxaa ka deeq badan allah, maxaa wixiisa ka wasci badan allah subxaanahu wa tacaala. yahuudda waxay dhaheen, yahuudda waxay yidhaahdeen yadullah maqluula, gacanta alla way laaban tahay, wax badan ma bixiyo. hullad aydiihim, gacmahooda ha la laabo, gacmahooda ha go'aano, gacmahooda ha noqdaana kuwa la laabay. hullad aydiihim, gacmahoodaa la laabay, ku la laabay markaa ah. bal yadaahu mabsuudataan yunfiqu kayfa yashaa subxaana wa tacaala. laba gacan buu leeyahay, bal yadaahu mabsuudataan, fidsan, u nafaqeeya si allaala sida uu doono subxaana wa tacaala. bacdamay xaaladu saa tahay iyo aflagaada kale la yimideen oo ay dhaheen ilaahay waa faqiir. waqad samica allah qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiir wanaxnu agniyaa. anagaa taajiro ah, anagaa haniyaal ah, anagaa hodantinimo ah. xaalkaa markay dhaheen, ninkii saayir abubakar baa maqlaayay, dharbaaxa labadeeda intuu u kala qaaday uu u kala jiiday, halkaa uga dhuftay ilaa ishuu barartay. gacantuu ku soo qabsay. nebi moxamed buu u yimid, waa og yahay inuu caadil yahay, waa og yahay nebigu inuu xaqa garsooro, waa og yahay inuu xaqa sida uu yahay u bayaaninayo. saa markuu ugu dhajiyey, asoo qaylinayo, oynayo, rasuulka u yimid. saaxiibka asaa isoo yeelay. abubakar maxaa u gashay, maxaa saa u yeeshay? wuxuu dhaha rasuulka alla ilaahay buu caayay, wuxuu dhaha ilaahay waa faqiir, annaga agniya ah. waa iscelin waayey. abubakar in koronto lagu qabtaad moodaa, ilaahiisiyaa la caayay, wuu iscelin waayey, wuu ishanan waayey. abubakar radia allahu canhu wakhti uu ku dhuftay wakhti kaleba maba kala yaqaano. yahuudigii wuu inkiray, ma aanan dhihin buu yidhi ilaa ilaahay soo dejiyey. laqad samica allah qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa. waanu maqalnay oo ilaahay wuu maqlay kuwii yidhi ilaahay waa faqiir, anaga agniyo ah. sanaktubu maa qaaluu, waxay dhaheen baanu qori doonaa. layntay ambiyadu laayeenna waanu qori doonaa. cadaabka dhadhamiyaanu dhihi doonaa. xaaladahaasaa markaa ilaahay tilmaamay. carafo walaalayaal, waa tana oo na soo qaabishay, waa tana oo na soo haraysay. waa fursad dahabi ah, kii ka faa'iidaystana nasiib buu helay. rabbi subxaana wa tacaala inta nasiib hesha ayaan darowda ee maalintaa ka qadnana ilaahay ha naga ilaaliyo.
subxaana watacaala. allah xaqa hana waafajiyo, kuwa ka faa'iidaysta allah naga dhigo, carafo kuwa ka faa'iidaysta allah naga dhigo, kuwa ilaahay subxaana watacaala naartuu ka xoreeya allah nagu daro, kuwa ducadooda la aqbala allah nagu daro, dhibkana haysta kuwa laga qaada ilaahay ha naga dhigo. rabbi subxaana watacaalana soonkaa beri la soomi doonay carafana labadeeda sano dembi dhaafkeeda ilaahay ha noogu deeqo. allahuma aamiin, allahuma aamiin, allahuma aamiin. وبالله التوفيق والله أعلم.